faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qarax nooca miinada ah oo kulaya ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya qaybta ka howlgasha Amazon lagula eegtay deegaankaasi Garbahaale xarunta gobolkaasi Gadow qaraxan oo ka dhacay agagaarka saldhigga ciidamada ay ku leedahay Garbahaale ayaa jugtiisa si xoog looga maqlay xaafada ka tirsan deegaankaasi wararka ayaa sheegay qaraxan in waxyeelada kala duwan ay ka soo gaartay askartii la bartilmaamsaday al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ayaa faahfaahin ka bixisay waxna ay sheegtay inay ku dishay ugu yaraan 2 askari ka tirsan ciidamada Itoobiya sidoo kale qoraal ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa miinada ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 4 askari ma jirto wali wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa militariga Soomaaliya ku aadan dhacdadaasi inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa weerar jidgooyo ah ku qaada jiciliyada ay isaga kala gooshayeen koonfurta bartamaha dalkaasi Xamse Dabaare Star TV